ciidamada Jubbaland ayaa la sheegay inay isku diyaarinayaan dagaalkii ugu dambeeyay ay ku wajahayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha u dirtay gobolka Gedo halkaas oo la sheegay in ciidamada Jubbaland ay mar kale ay muujinayaan diyaar garow xoogan kadib markii la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Axmed Midoobe ay gudaha u galeen dalka Kenya xuduudda la Soomaaliya waxaa la sheegaa in halkaasi oo ay ka dhacday shaqaaqad xoogan oo u dhaxaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya halkaas kaga joogay iyo sidoo kale ciidamada maamulka Axmed Midoobe kuwaas oo la sheegay inay isku adeegsadeen rasaas kala duwan sidoo kale deegaanka Mandera ayaa la sheegayaa dalka Kenya in gabi ahaanba uu istaagay isu socodkii gaadiidkii ganacsigii iyo sidoo kale goobihii waxbarashada kadib markii halkaasi la sheegay ay gaareen ciidamada Jubbaland oo halkaasi wili ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan Kenya ayaa sidoo kale soo faragelisay iyo sidoo kale siyaasiyiinta Soomaalida ee maamulkaasi halkaasi ka tirsan ayaa sidoo kale soo farageliyay arinta iyagoo sidoo kale ku tilmaamay wax ay lid iyo sidoo kale amni darba ay ku tahay dadka reer Kenya Jubbaland ayaa la sheegay in qorsheedu ugu dambeeyay ay tahay sidii ay ugu adkaan lahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale sidii ay gobolka Gedo idilba dib ay ugu soo ceshan lahayd isla markaana gacanta ugu dhigi lahaa madaxweyne Axmed Islaam madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu halkaasi gobolka Gedo ka bilaabay qorista ciidamo cusub kuwaas oo la sheegay inay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale waxaa la sheegaa in ilaa iyo Kismaayo si hoose ciidamo looga qorayo kuwaas oo waqtigooda marka la gaarana ay isku diyaarin doonaan inay weerar ay ku qaadaan madaxtooyada Jubbaland isla markaana halkaasi si isagoo nool gacanta looga dhigo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo arintan ku duulaya ayaa la sheegay isaguna inuu diyaarsaday qorshe xoogan taas oo ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo sidoo kale la sheegay inuu diyaariyay ciidamo qaab sirdoon u howlgalaya kuwaas oo ka howlgalaya ee gobolka Gedo isla markaana badankood ciidamada la sheegay inay ka soo jeedaan beesha Mareexaan laakiin ay taabacsan yihiin maamulka Axmed Islaam kuwaas oo ku dhaxmelmay bulshada la sheegayna in haddii ciidamada Jubbaland halkaasi weerar ay ku qaadaan ay iyaguna diyaar u yihiin inay saacidaan ama garab buuxa ay siiyaan ciidamada maamulka Jubbaland qorshe culus iyo sidoo kale diyaar garow dagaal xoogan iyo sidoo kale hubab noocyadiisa kala duwan oo ka soo qaatay dowladda Kenya iyo sidoo kale Ethiopia halka Imaaraadka iyada sidoo kalena ay maraakiib oo saaran gawaari nooca Cabdibilaha iyo sidoo kale gawaarida gaashaaman ay gaarsiisay Jubbaland iyo sidoo kale hubab culus sida qoryaha oo sida hubabka fudud oo kale qoryaha Beekamka iyo AK47 kaba la sheegay in dekada Kismaayo halkaasi laga dejiyay isla markaana Axmed Midoobe hubkaasi oo u gacan galay taasna ay tahay arintu ku dhiiranayo hogaamiyaha Jubbaland markasta oo ku tashanayo in haddii weerar ay ku soo qaado dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi hubkaasi u adeegsan doono isla markaana uu aabiyeeli doonin dowladda Soomaaliya ayaa ku andacoonaysa in Axmed Midoobe hub uu aroorsaday kadibna isaga si iskiisa ugu doonayo inuu ku weeraro dowladda federaalka Soomaaliya halka Al-Shabaab halkaasi ay hore dowladda federaalka Soomaaliya hore ugu sheegtay in madaxa shabaabku uu yaalo ee Jubbaland isla markaana Axmed Midoobe uusan waxba ka qabanin maadaama isagu saaxiibo uu leeyahay Al-Shabaabka sida dowladda federaalka Soomaaliya hadalkeeda hore ay u dhigtaba imikana qorshe wuxuu noqonayaa mid faraha ka sii baxaya haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay u sii jeesato dhinaca Kismaayo isla markaana weerar cer iyo dhulba ay ku qaado ay noqon doonto sidoo kale dadka reer Jubbaland ay wajihi doonaan cawaaqibo iyo sidoo kale xanibaado oo kaga yimaada cirka iyo sidoo kale dhulkaba taasina sababi doonto khasaaraha dhimasho xoogan ee soo gaarta bulshada iyo sidoo kale dowladda iyo maamulka taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ah inay soo dhiso New Jubbaland ayaa wali uu yahay mid hirgeli la isla markaana caqabad uu yahayna caqabada ugu weyn halkaasina ay sababta maamulka loo dhisi lahaa uu yahay Axmed Islaam oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan halkaasi uu ka wado dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegaa in qorshaheeda halkaasi oo ay ka wado
marba haddii ay doonayso markastaba tallaabo ay qaadana Axmed Madoobe hore uu ku ogaanayo, taasina ay kalifayso inuu fashilmo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhana maamulka Jubbaland si ay u dhisi lahayd New Jubbaland. beesha Mareexaan iyagu waxay ku andacoonayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee gobolkaasi Gedo u aqoonsado maamul goboleed cusub isla markaana ka madax banaan ee Jubbaland, sidoo kalena hoos imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaliya ma doonayo in gobolka Gedo ay noqoto maamul, laakiin wuxuu doonayaa in Jubbaland oo idilba gacanta uu ku dhigo isla markaana halkaasi uu geeyo qof beesha Mareexaan ka soo jeeda si uu xukunka u la wareego. beesha Ogaadeen iyo Mareexaanka ayaa la sheegaa inuu u dhaxeeyo khilaafiyo hoose taasoo sababtay xukunka oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayay inuu ku rido isla markaana ku wareejiyo Mareexaan. beesha Ogaadeen waxaa la sheegaa in iyagu ay diideen in qofkoodii halkaasi laga tuuro isla markaana iyagu xaq u leeyihiin. haddii Axmed Madoobe la tuurana ay iyagu doonayaan in qof kale oo beesha Ogaadeen ka soo jeeda oo halkaasi uu ku matalo, laakiin in qof beesha Mareexaan halkaasi yimaadana ay diidan yihiin. sidoo kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xukunka wareegto uu yahay dadka majoritigana ay yihiin beesha Mareexaan, halkaasi iyagu xaq u leeyihiin inay maamulaan. arrintaasi waxaa ugu muhiimsan in gobolka Gedo cidda gacanta ku haysa ay maamuli karto guud ahaan Jubbaland. Axmed Madoobe qorshihiisa ugu dambeysay wuxuu xooga saarayaa sidii mar kale oo gacanta ugu soo dhigi lahaa kadib markii hore madaxweyne ku-xigeenka ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu halkaasi u soo hindheeyay isla markaana hareeraha gobolka Gedo oo idil uu ka tallaabsaday, maadaama la sheegay in halkaasi ujeedada ugu weyn u tagay ay ahayd in dhulkaasi oo idil uu sahmiyo isla markaana lagu sameeyo sahmin xoogan halka ay joogaan amaba ay ku badan yihiin, sida ciidamada iyo sidoo kale gobolka Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqoodii halkaasi iyo wax kasta dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado. waxaase la sheegaa in xogtan oo idil u gudbiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam, qorshahana uu yahay Jubbalandna ay sugayso mar hal fursad inay ku weerarto gobolka Gedo.